واتهاي ما أنت وحكى هذا الناشر عجاك قرن نور لبس يبقى مرة قارك شرع يعني مركزي نمبر هذا اللي قصوا قرا مرة قارك هذا اللي قصوا قرا شين لا تن أبسط لبا كلامه صدق مرة قارك هذا اللي قصوا قرا كراين قحنت تهاي marka waa sharciga 3 sano ee qaxoontinimada ama baasaboorka buluuga wata sharcigaasi muxuu yahay wadankii ma ku tagi kartaa safarada ma ku tagi kartaa hadii adigoo haysta baasaboorka buluuga ama qaxoontinimada lagu diro safarada Soomaalida ee Jarmalka ku taala ama wadamada kale ma tagi karaysaa maxaa saxal ah su'aalahaasi ayay muuqaalkeena kaga jawaabi doonaa abad ma sin saaxiibayaal waxaan jeclahay inaad blues ka meesha ka qaadid sidoo kale aad leegareysid favorite-kana taabatid aad bad ma santiin saaxiibo kale oo Jarmalka ama aad danaynaya muuqaalkana aad soo gudbisid hadaba sharcigan ama baasaboorka buluuga ama sharciga qaxoontinimada sharciga koowaad ee marka qofku qaxoontinimada dalbado isla markaasina interviewgiisa kadib loogu soo jawaabo sharciga ugu fiican ee dhanka qaxoontinimada isla markaasina cadeynayaan lagu ogolaaday qaxoontinimada sharcigan hadii aad haysatid wadanka aad ka timi asal ahaan kuma tagi kartid oo waa ka mamnuuc inaad wadanka aad ka timi ku tagtid sidoo kale safarada wadanka aad ka timi uu ku leeyahay wadanka aad qaxoontinimada isaga dhiibtay isagana markaasi ma tagi kartid safaradana hadaba su'aasha inta badan asxaabtu isweydiisaa waxay tahay hadii safarada la ii diro anigoo baasaboor buluug haysta maxaa xala xafiiskii doona ku diri kara xafiisyada markaas ay qusayso marka kugu raadaan baasaboor Soomaali noo keen dhima laha wad keeni kartaa wax saameyn ku ma yeelanay laakiin hadii kugu raadaan noo keen maxaa sameynaysaa waxaad weydiinaysaa waraaq yar oo laahdo suusi shaqum ama waraaqdaasi waxa ay markaasi amaankaaga sugaysaa hadii hadhow dhibaato kaaga timaado oo hadii hadhow lagu qabsado lagu raado maxaa safarada u tagtay waraaqdaasi sidata ku cadeynaysa in safarada lagu diray oo xafiis hebel iyo gabadh hebel ama nin hebel oo xafiiskaasi jooga uu ku diray sida safarada marka wax dhibaato kaaga iman mayso hadda haystid waraaq cadeynaysa inaad tagi kartid oo xafiis dawladeed markaasi ka soo baxday markasta hawl qabanaysid taas waraaqdan waxa qusaysaa markasto lagu raado waxa samee inaad waraaq ka dalbatid oo ay ku cadeeyaan waxa ay ku diraan in iyagu ku diraan hadhow si aanay dhibaato kaaga iman inta badan way dhacdaa inaad qof xafiiska ugu tagtid kadibna qofkaasi uu ku raado waxa samee ku raado aad wixii soo sameeysid hadhow ma ballan kala qabsatid oo qof kale xafiiska ugu timaado ku raado waxa wadid uma baahninba marka markasta hadii baasaboor Soomaali lagu diro hadii waraaq cadeena lagu diro hadii xafiis wax ka ku diro qofka xafiiska fadhiyaha ka ogolaan inuu afka wax kaaga sheego markasta waraaq cadeynaha ku soo raaciyo su'aalo fara badan ayaad muuqaalka shaliga soo weydiiseen kana waan ogahay su'aalo fara badan ku qoran yihiin mid ayaanu sidaan idinku ballan qaaday insha Allah idinka soo jawaabi doonaa idul qaata aad bad ma santiin sharaf iyo karaamo agteeda ka mudantihiin muuqaalkana la gareeya mac salaama